Bismillaahi Raxmaani Raxiim soo dhawaada saaxiibayaal sidii caadiga ahayd waxaa noo soo socday taxane aan ku baranaynay suuqa sarifka lacagaha qalaad luqadeena hooyo afka Soomaaliga ah qof walbana uu fahmi karo luqadda aan ku hadlayo yaqaana sidii caadiga ahayd taxanihii hore noo soo socday waxyaabaha ugu soo sheekeynay waxaa ka mid ahaa forex fursadan sida ay ku timid marxaladihii kala duwanaa ee soo martay iyo sida looga shaqaysan karo iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee asaasiga ah qofka in uu fahmo la rabana waxa ay yihiin ayaan soo qaadanay sidoo kale waxaan soo baranay noocyada kala duwan ee candlestick-yada iyo qofka marka ugu horeysa ee la rabo in uu suuqii analyze gareeyo ama uu taxliiliyo waxyaabaha ugu horeeya la rabo in uu barto waxaan rajeynayaa marka intaas qofkii si dhab ah ama serious u qaata ee isku daya in uu wax badan ka ogaado in ay ka bedeli doonto noloshiisa wax badan oo forexna wax badan ka fahmi doono ayaan rajeynayaa hadduu ilaahay yiraahdo intaas markaa ugu soo gudubno casharadii hore caawa waxaa noo bilaabanaya insha allah hadduu ilaah yiraahdo taxane cusub oo ah meeshii dhan ee suuqa aan rabnay in aan dagaalkeenna uu ka bilaaban lahay ee la rabo qof walba ee suuqan ku jirana in uu fahmo si uu wax uun faa'iido ah uga qabsado sababta suuqan marka koowaad aad soo geshid waxa ugu horeeya kuu muuqanayo waa candlestick-yadana micno iyo qaab ay u samaysmaan iyo naqshado ay suubiyaan ayaa jirto marka waxaan rabnaa inaan ogaano naqshadaha suuqan ka dhexdhaca sababaha ay u dhacaan iyo markay dhacaan fariinta ay ku wadaan waxa ay tahay in aad fahantid markii hore waxaan kasoo sheekeynay kardhalada gooni ah haddana waxaan rabnaa naqshada iyo qaabka ay u samaysmayaan in aan hadduu ilaahay yiraahdo wax ka barano ilaa waxaa adiga qiyaasti ay noqonaysaa 7 ilaa 8 nooc oo ah patterniska ee ah kuwa ugu muhiimsan suuqan marka la joogo ee la rabo inuu qofka wax badan uu ka fahmo marka hore qoraalkan aan soo diyaariyay hadduu ilaahay yiraahdo isha isla marinaynaa anagoo kadibna tegi doono trading view-ga si aan iyadoo practice ama muuqaal ahaan ama gacanta aan ugu suubino hadduu ilaahay yiraahdo okay waa kana marka casharkeenna 13aad hadduu ilaahay yiraahdo waxyaabaha aan ku baran doono marka waxaa ka mid ah important chart patterns qaababka shaxda muhiimka ah ayay noqonaysaa af Soomaali ahaan markii laga dhigo okay waxaan rabaa marka qaybtan wixii ka bilowda waa meesha ugu muhiimsan ee la rabo qof walba suuqan ka ganacsada in uu fahmo haddii ildoof yar uu kugu dhaco hadday si wax kaa noqdaan waa meesha qaladkaada ugu weyn ee cawaaqib xumo kuu keeni kara ay kaaga imaan karto haddii aadan ka fiirsanin okay chart patterniska waa in noocyo badan yihiin way kala duwan yihiin nooc walba mid si gooni ah ayuu u samaysmaa qofkana waxaa la rabaa markii xaaladan oo kale uu arko in uu fahmi karo fariinta markaasi suuqa looga wado okay hadduu ilaah yiraahdo marka taxanaheena caawa noo bilowday waxyaabaha aan ku baran doono iyo kuwa dambe ee soo socdo ayaan si hordhac ah u soo qaadanay qaybta koowaad waxaan ku baran doonaa hadduu ilaah yiraahdo double top iyo double bottom waxa la dhaho iyo waxa ay qabtaan iyo sida ay u soo muuqdaan suuqan gudihiisa marka la joogo sidoo kale waxaa jiro head and shoulders iyo inverse head and shoulders oo ah nooc ka mid ah shaxnada suuqan uu samaysto oo laba nooc ku yimaada mid walba hortiina ka muuqdana si qaab laba nooc ayuu ku muuqdaa oo cagsi isku ah nooca kale saddexaad waxaa la yidhahdaa rising and falling wages nooca kaleeto bullish and bearish rectangles iyo sidoo kaleeto bearish and bullish pennants iyo nooca ugu dambeeya oo ah triangle symmetrical ascending and descending okay noocyadu marka waa ay badan yihiin waa ayna kala duwan yihiin mid walbana fariin khaas ah ayuu suuqa kaaga wadaa nooca koowaad ayaan rabnaa caawa hadduu ilaah yiraahdo in aan isla falanqeyno aan fiirino sababaha uu ku yimaado iyo sida uu suuqa marka la joogo u samaysmo haddii double top iyo double bottom suuqa aad ku aragtid fariin noocee ah ayay ku wadaan sideena suuqa markaad joogtid uga ganacsan kartaa ama ugu trade gareyn kartaana insha allah hadduu ilaah yiraahdo in aan isla fiirino okay qaybaha dambe casharada dambe soo socdana waxaan mid u dul istaagi doonaa inta kaleeto ee ka dhiman shaxda suuqa ama important chart patternska noocyada loo yaqaano okay double topka oo ah nooca maanta miiska noo saaran iyo double bottomka ayaan rabnaa marka hore in aan isla ogaano sawir ahaan waxa ay u muuqdaan qaabkan hortiina ka muuqda haddii aad fiirsid dhankaada midig ee shaashada kore qaybta koowaad waxa kaaga muuqda waa double top
oo ah laba madax ama laba jibaar isgarab yaalla oo si qaab kor u samaysmaayo meeshan hoosena waxaa loo yaqaanaa neckline-ka oo ah meeshii dhan ee la rabay marka aad supportiga iyo resistancega aad dhigan lahayd aad ogaan lahayd in uu yahay double top sax ah okay isla sawirka labaadna waa cagsiga nooca koowaad ee double topka kanna waxaa loo yaqaanaa suuqa marka la joogo double bottom okay marka shaxanka laba jibaar sare ama laba jibaar hoose sababtoo kelmadda af Soomaaliya markaa u rogay waxaa ii soo baxday in ay tahay laba jibaar sare iyo laba jibaar hoose si aan iskula fahanana waxaa ila fududaatay in aan af Soomaali ahaan idinkula wadaago magacooda guudna double top iyo double bottom ayaa loo yaqaanaa marka shaxan laba jibaar sare ama laba jibaar hoose uu ka muuqdo shumacyada suuqa isbedel ayaa bilaabmaya ee diyaar garow aynu baranno sida loo aqoonsado qaababka shaxdan looguna ganacsado suuqan marka la joogo ee forex-ka okay nooca koowaad marka double topka oo ah laba jibaar sare haddii aan macluumaad hordhac aan ka soo bidno noocan sidiisaba waa bearish reversal button haddii aad aragtid double top waa nooca loo yaqaano laba jibaarka sare waa bearish reversal button okay markii hore uu imaanay suuqan wuxuu ka yimid suuq hoos ka yimid kor u socday ama uptrend ah waay okay uptrend suuq ku soo socday marka uu ku siiyo fariin double top ah ama laba jibaar sare uu ku siiyo fariinta aad sugaysid ugu horeysa waa bearish reversal button oo ah kala wareeg hoose in markaasi uu dhici rabo okay laba jibaar sare waa qaabab dib u laabasho ah oo la sameeyey kadib marka kor loo qaado dusha sare ayaa ah meesha ugu sareysa taas oo la sameeyey marka qiimaha uu ku dhaco heerar cayiman oo aan la jebin karin intaas oo fudud ah umalena waa la fahmi karaa aan la jebin karin macnaheeda qaybtan sare ee marka aad imaatid double topkaaga meeshan labadan calaamadood ee hortiina ka muuqda waxaad dhigan kartaa xariijin support ah ama resistance ku noqonayso xariijinta markaad dhigatid waa in xariijinta labada madaxba ay ku taabtaan waxyaabaha loo xaqiijiyo ayay ka mid tahay in ay ku taabtaan labadanna ay isla siman yihiin nooca marka isla siman waxaa loo yaqaanaa double top kelimadan neckline-ka waa kelimad English ah macnaha af Soomaali ahaan waxay noqonaysaa qoorta okay qoortoodana waa inay isla siman tahay marka xariijin markaan saa usoo qaato ee qaybtan hoose aan dhigo waa inay isla siman yihiin oo qaab isla siman ay yihiin okay marka kadib marka aad garaacdo marka heerkan qiimaha wax yar ayuu ka soo kabanayaa laakiin dib ayuu u noqonayaa si aad mar labaad u tijaabiso marka uu qiimaha inta yimaado ee isla sinaadaan labadooda marka tii hore meesha ay tagtay markii kan uu yimaado qiimaha hoos ayaa loo celinayaa midda kale xasuusnaada noocyadan double topka iyo double bottomka waxay ka dhexdhacaan oo laga helaa eriyooyinka supportiga iyo resistancega badanaa double topkan wuxuu ka dhacaa resistance area nooca labaad ee noo soo socdana ee asna ah double bottomkana waxa uu ka dhacaa area support ah taas in aad si fiican u xasuusnaataan rajayna cashiradii hore waxyaabaha aan ku soo qaadanayna waxaa ka mid ahaa suuqan nooc walbo loo taxliiliyo iyo nooc walbo shaxna iyo waxyaabo farsamo loo raadiyo kulli waxay hoos imaadaan support iyo resistance okay double topka marka double bottomka aan dhahay double bottomka waa laba jibaar hoose asagana sidoo kale waa qaab isbedel dib u dhac ah laakiin markan waxaan doonaynaa in aan fursad kor aan raadino halkii aan ka raadin lahayn fursad hoose okay qaab dhismeedkani marka wuxuu dhacaa kadib hoos u dhac sii hoose markii laba dooxyo ama dhalooyin la sameeyey tusaale marka haddaan intaas dul istaago kii hore haddii aad si fiican indhahaaga ugu celisid sawirka hore ee hadda hortaada ka muuqda waa laba madax oo ah laba madax isgarab yaalla double top sababta loogu bixiyey ama laba jibaarka sare waa madax isla siman oo ah suuq markiisa hore hoos ka yimid ee kor ku dhacay kor markii uu gaaray soo noqday isla madaxii markii hore uu ka soo noqdayna ku laabtay kadibna hoos u soo daatay okay kan waa cagsigiisa marka double bottomka ama laba jibaarka hoose waa cagsigiisa kii hore aan soo aragnay ayuu cagsi ku yahay sababtoo ah kii hore waxa uu u samaysmayay si kore kanna waxa uu u samaysmaa si hoose
isla tusaalihii hore haddii aad fiirisid waxaa fahmaysaa sawirkan hortaada ka muuqdaa xariijimihii iyo meelihii loogu talagalay in laga soo celinayay in ay isla siman yihiin. Okay, badanaan marka waxaan soo sheegnay double topka waxa uu ka dhacaa area resistance ah ama meel kore uu ka dhacaa. Double bottomkana waxa uu ka dhacaa meel hoose ama area support ah. Okay, taas inaad si fiican u xasuusnaataan rajaynaa insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo. Marka waxaa imaanaysa qofka uu rabaa inuu ogaado haddii aan arko double top ama double bottom see ugu trade gareyn karaa marka. In double topka iyo double bottomka yaa rabtaa inaad ku trade gareysid. Kow aan ku laabana marka double topka. Double topka markii uu sidan u muuqdo ee suuqa aad ku aragtid ee aad rabtid in aad ku trade gareysid marka. Laba fariimidkood waa la qaataa marka. Kow waxa ugu horeeya la rabo horta in aad samaysid ama aad sugtid xariijintan meesha ku taala suuq inuu soo jabsado. Kow isla markii uu soo jabsado marka laba nooc ah jirto. Dadka laba nooc ay u kala baxaan. Labada nooc waa dad markii suuqa uu soo jabsado isla markiiba hoos u raaca. Okay, iyo nooca labaad oo ah suuqii markuu soo jabsado ee pullback uu ku siiyo kadibna si fursad hoose u raadid. Suuqa marka qiyaana jirto iyo shaxa jirto loo raaco iyo qaab loo raaca. Haddii aan rabo suuq double top ah in aan hoos ama kor labadaba kee doonta u raaco ileen double topka waxa cagsigiisu waa double bottom asna suubsami kara. Haddii labadooda marka aan rabo in aan suuqii ku trade gareeyo waxaa suubinaysaa marka ugu horeyso xariijintaada supportiga ah ee labadan ay ku yaalaan waxaad cabirataa xariijinta ilaa madaxa kore inta dhaqaaq ee suuqaasi uu sameeyey. halkaas si fiican u dhageysta. inta dhaqaaq ee suuqaasi uu sameeyey si fiican u cabiro oo ah tusaalaha intaan ka soo qaatay qaybtan ilaa qaybta sare uu gaaray ayaad soo cabiranaysaa. kadib markaa intaas soo cabiratid ee suuqii uu kuu soo jabsado pullbackina kan dalka labaad uu ku siiyo waxaa samaynaysaa marka fursaddii kore intaan uu soo dhaqaaqay fursad la mid ah ayuu si hoose u dhaqaaqi doonaa. si marka aad fursaddaasi uga faa'iidaysatid waa in aad og tahay cabirkii ka horreeyey kan ee uu soo dhaqaaqay. hadday tahay 50 biib 30 biib 40 biib wax alla wixii la doono in alla intay kan kuu noqoto ayuu hoos u dhaqaaqi karaa. ugu yaraan way ka badnaan kartaa wayna ka muxuu ahaa ii sheeg yaraan kartaa. laakiin waxa ugu muhiimsan marka waxay tahay haddii aad aragtid double top diyaarsan ee suuqa markaasi uu ku sameeyey wiligaa ha ku degdegin suuqaasi ilaa uu ka soo jabsado kadibna uu pullback uu ku siiyo. sababtoo mararka qaar waxaa dhacda in suuqii asagoo double top uu ku siiyey isla markiina loo celiyo jiha sare oo kor ah. sababtoo ah areadii supportiga marmarka qaar sida dhacda suuqa waa laga celin karaa. fursadaha marka ugu horeeya la rabo inaad ogaatay waxay tahay kow double top ma samaysmay haa. labo haddii double top oo suubsamay maxaa ku xiga marka waa inaad sugnaa in suuqaasi uu soo jabsadaa kadibna uuna siiyaa pullback si aan fursad hoose ugu raacno. saddex dhaqaaqii hore ee topska markuu suubsanaya suuqa uu dhaqaaqay in la mid ah si aad u soo cabiratid ayaa la rabaa in aad intaasi in la eg aad u raacdid fursad qaab hoose ah. intaasi waxaan rajaynayaa inay fudud tahay oo in dhib badneen oo la fahmi karo. isla sidoo kaleeto double bottomkana waa isla same kii hore aan ka soo sheekeynay keliya cagsi ayay isku yihiin oo noocna waxa uu ka samaysmaa support area noocna waxa uu ka suubsamaa resistance area. noocan marka loo yaqaano double bottomka waa suuq bearish reversal pattern ah ama suuq raba in uu kor u laabto oo jiha kore aado. kii horena jiha hoose ayuu aadaya. mar walbana waxa uu ka dhexdhacaa trendinada inta ugu badan. sidoo kaleeta marka saacadaha lagu fiirsan karo ayuu qofku isweydiin karaa oo leeyahay saacadahan ku raadsan karaa. saacadaha ugu badan ee laga fiiriyo waa 4 saac iyo ilaa 1 saac inta u dhaxayso iyo wixii maalin iyo week loo gaaro intaba waa ka raadsan kartaa. laakiin 1 saac wixii ka yar habeeraatee ha ku dayin in aad ka dhex raadisid. okay, intaas marka isla soo faahna marka waxaan sameynaynaa qoraal ahaan markaan ugu soo sheekeyno waxaan rabnaa inaan wixii marka ficil ahaan aan u aragno si aan u ogaanana waxaan tegi doonaa hadduu allah awoodi la yiraahdo trading view-ga oo ah meeshii dhan ee aan ku samaysanaynay shaxanadii suuqa ama candlestick-adii aan ku arki lahayn. okay, qaybta hadda aniga aan joogo ee trading view-ga waa 15 daqiiqo. 15 daqiiqo waxaan dhahay badanaa mar aad suuqii soo taxliilisatid
aba aad qiimaysatid gelistaada ama meelihii aad ka geli lahayd ayaad ka dhiganaysaa. Inta kale wixii halka saac ka badan ayaad tegaysaa. Okay, calaamadda session break aan iska xiro. Kadib suuqa markuu saanku ugu soo baxo, marka hore horta in aad ogaatida la rabaa. qaab ahaan suuqa indhahaagu markay qabtaan ma fahmi kartaa. indhahaagu suuqan markay qabtaan ma fahmi kartaa double top meel uu ka samaystay ama double bottom meel uu ka samaystay. waa inaad ugu horeen fiirisaa. Okay, 4 saac aan tegaynaa marka. 4 saac markaan tagnay ugu horey aan rabna inaan raadinaa waa double top oo ah 2 jibaar sare. Okay, 2 jibaarkii sare marka si aan u ogaano eriyadan haddaad si fiican u fiirisid aan soo qaata xariijinteedii resistancega. haddii meeshaasi aan dhigto shumacaas aan soo qaato calaamadihii aan wax ku suubsanaye qaybtan maaha, so waxaan u baahanahay okay fariin ahaan qoraal ahaan si qofka markaasi uu fahmi karo. Okay, waxaan rabaa marka in aan suubsado suuqa markii hadda inta ujeeda meeshaas oo kale. tusaale ahaan si fiican u fiiri meeshaas suuqa markii inta uu ka soo bilaabay markiis hore wuxuu ahaa suuq down ama uptrend ku socdo ahay. suuqa uptrend markuu ku socdo haddii aan soo diyaarsado tusaale ahaan uptrendgii suuqan ujeedaa oo jiha kore ayuu ku socdaa. markaa si fiican u fiirisid good. taas markaa ogaatay marka double topkii meesha uu ka soo bixi karo waa tana. marka waxaan rabaa iyadana isla necklinekii in aan xariijisano oo aan ogaano. okay, jabsashadeeni waxa uu naga siiyey eriyadaas. kadibna waxaan helnay kandhaladii bullbagga ahay fursad hoose oo suuq hoose ayaan halkan ka helnay. okay good. hadday saa soo sheegna marka waxaan dhahnay si aan ugu qiyaas qaadano cabirada waa inaan ogaanaa inta markaasi dhaqaaq intaan ka dhacday. intaan hadda waa 109 bib. 109ka bib ayaan soo qaadanaa oo ah meeshii uu ka laabtay. halkaas ayaan la cabiranaa oon dhiganaa. aniga waxa ugu weyn aan ka rabo suuqa marka waxay tahay 109kaasi bib inuu isiiyo. hadday iiga badatana waa falilaahi alxamdu sidii la rabay. hadday dhici weysana intaas inaan ka heli karo. marka ay ugu yartahay waa inuu intaan dhaqaaqa 109ka. haddii kalena waa uu ka badsan karaa. okay, waxaa fahamta hadda marka sida loo raadiyo double topka iyo dhaqaaqyada si loo ogaado iyo haddii uu ku siiyo pullback sidii aad meeshaasi uga raaci lahayd. good, kaas waxa uu ahay double top. waxaan rabnaa marka isla sidii oo kaleeto in aan fiirino double bottom. double bottom oo ah ayadana badanaa noocyada hoos ka dhaca. si aan u raadino marka waxaa loo baahan yahay inaad mar walba dulqaad samaysid si aad suuqii uga dhex raadiso double top oo markaasi diyaarsan ama fariin ku siinaya. good, waxaan tagaa marka lacagta euro iyo dollarka. good, qaybtan inta iga qaad isoo dhaweey marka si aan u raadiyo double bottomkii. okay, inta badan double top ayaa ku badan laakiin waxaan rabaa sidoo kale qasab waxa ay suuqaasi in uu samaysto isla double. okay good, eridan oo kale marka so xariijinteeda ii soo qaad meeshaas ii dhig. suuqan waa suuq support ah. markiisa hore waxa uu ku soo socday jiha downtrend ah oo suuq hoos u soo daadinaya ayuu ahay. keliya uptrendkan tusaale ayaan ka rabaa ma aha sida uptrendka loo dhigto. meeshaasi marka aan dhigto good. okay, weliba xataa hadda lama dhihi karo waa double top perfect sax ah. waxaan rabnaa double top double bottom oo fariin sax ah ama suuq markaasi aan ku fahmi karno. good, waad raadinaysaa mar walba suuqa inaad ka raadisid ayaa muhiim ah. waqti si isla markaasi
aad u ogaatid meelaha uu markaasi ka dhacay double topka. Okay, badanaan waxaan ka raadinaynaa downtrend oo ah fursad hoose ama suuq jiha hoose u soo socday. Good. qaybtan oo kaleeto suuqan downtrendka marka uu yimid dhag isku qasan yahay, laakiin kan wuxuu u egyahay xoogaa uu shabahaa head and shoulderka u dhow yahay. mararno waxaan raadinaynaa waxay tahay double bottom oo aan ka raadinayno fursad hoose ama suuq sell ah. Good. lacagaha ugu badan oo ka dhici kara marka AUD iyo waxaan ka fiirinaynaa lacagta kana. Good. AUD ayaanba ka helaba saan rabi top waa kana marka. ujeedaa labada xariijin meesha ay ku dhawaatay oo isla siman tahay. double topkina waa kana. Good. labadii madax oo geesahana waa kana intuu ka samaysmay. suuqaan markiisii horena suuq jiha kor ka yimid ayuu ahay oo hoos u soo socday. Okay, inta markuu yimaado double bottomka aan ka helo. Good. waxaa laga rabaa marka okay. Good. xariijinteedii soo qaad. Okay, so waa kana marka xariijinta markuu yimid kadib ayuu noqday soo maha. xariijintaas hadda saa u sameynaya inays qurux badnayna laga yaabaa, laakiin muhiimadda waxay tahay in markaasi aad fahmi kartid. support marka xariijinteennan resistancegana inta ayaan ka dhiganaynaa. qaybtaas markaa ka dhigatid marka suuqa wax yar ayuu waxa uu galay marxalad consolidation ah, kadibna jihadiisii kore ayuu bilowday. sida caadiga ah marka meeshaan markii uu soo jabsado waxa aan sugayna waxay ahayd bullback in oo na siiyo. double topki markaa inta ka aragna marka meesha ugu soo horreysay ee uu suuqa ka jabsaday uu naga siiyey bullbackana waxa ay ahayd qaybtaasi. sababtoo hadda qaybtan bullback saxa lama dhihi karo, tan ayaa hadda markaa fiirisid ka saxan. intaana marka waxaan rabaa inaan uga qiyaas qaato dhaqaaqii hore ee suuqa uu soo dhaqaaqay. Good. markaasaan dhaho tusaale ahaan marka 97 bib ii soo qaad marka 97dan bib akaas ah. wax yar ayuu ka kor maray oo wax badan xoogaa 105 uu gaaray, laakiin almuhiim waxaa ah intii markaas anaga dhaqaaq aan rabnay ee aan raadinaynay ma ka heli karnaa. saacadaha lagu raadiyo waa soo sheegnay 4 saac iyo wixii ka badan ayaad ku raadin kartaa. raali ahaada salaadii ishaha noola adimaa. 4 saac iyo wixii ka badan ayaad ku raadin kartaa ilaa 1 saac wixii loo gaaro. 1 saac wixii ka yar way adag tahay dabcan si aad ku heshid, laakiin inta badan waxaa ugu badan double topka ayaa ku badan. laakiin waxaan rajeynayaa in aad intaas wax yar information aad ka fahanteen. sida loo raadsadana ma ahan kulley si dhib badan, keliya waxay u baahan tahay inaad waqti siisid, raadisid lacag alla lacagti markaasi adiga aad ku trade garaysid adoo ka raadinayo fiirinayo meelaha supportiga iyo resistancega ah. waxaan rajeynaya intaas inaad fahanteen. muhiimadeena maantana waxaa ahayd in aad fahantaan double top iyo double button oo af Soomaali ahaan aan u bixinay 2 jibaar sare iyo 2 jibaar hoose. badanaana markay suuqa ka dhacaan labadooda waxa ay ku yimaadaan suuq downtrend ah oo na siinayo fariin double bottom ah iyo suuq uptrend ah oo na siinayo fariin double top ah. meelaha ay ka dhacaan iyo siday u dhacaan hadda ogaatay waxa u baahan tahay marka suuqaasi in aad hubsatid si aad u gashid. gelista marka waxaan dhahnay waxa muhiim ah in rabo qofka in uu ogaado meelaha aad ka gelaysid waa in aad uga qiyaas qaadatid dhaqaaqyadii hore oo suuqaasi uu sameeyey oo ah haddii tusaale suuqan intaan uu soo dhaqaaqay 50 70 100 bi waxay doontaba ha noqotee in qaybtiisa labaad uu dhaqaaqi doono intii ila mid ah. waxaan rajeynaa inaad wax badan ka fahanteen insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo. cashirkeenii 13aad ee qaybaheenii koowaad ee ah chart buttonska intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo. intaan cashirkan cashir la mid ah ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.